السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل والبا جوجتان سلام قيمة بدن أيان إذن سلام يا ولالي مركا ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha labadaba waxaan leenahay hambalyan leenahay hanaankii fiicnaa ee dawladnimada ahaa ee aad ka soo shaqayseen 3 sano ee soo dhamaatay hambalyan idin leenahay waad mahadsantihiin ilaahay ha idin barakeeyo ilaahayna ha idin soo celiyaan leenahay maalmahan waxaa jiray hadallo badan oo iska daba wareega iyo waxyaabo badan oo Soomaalinimada aan ku fiicnayn ninka la yiraahdo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cali Mahdi Maxamed iyo Cosoble ragba intay shireen meel fariisteen bay wax handadaad u eeg ama maaragtay inaan joogno 29kii oo kale ee uu dalku ku sugan yahay 29kii ama 95kii xilliyadii aan xamar isku dhex dili jirnay xilliyadii dadku ay lafaha iska guran jireen oo kale ayaa loo hadlaa la yiri mudulood wuxuusan ogoleyn war Soomaaliya ka shaqeyn maayaan muduloodaad sheegteen madarkicis iyo murusada iyo xawaadla ku dara hawiyo oo dhan ku soo darsada ma shaqeynayaan Soomaaliya dawladda Soomaaliya ee federaalka waxaysan raalli ka ahayn maanta xilligii dawladda qabiil isbaaran loogu dhigan jiray waa ka gudubtay maanta xilliga aan marayno ee Soomaaliya ay taagan tahay in deynti la cafinayo waxa aragteen oo ciidan la dhisay afar oday oo meel isugu tagtay mudulood baan nahay mudulooda shiray oo dawladii Soomaaliya waxaas been iyo buhtaan iyo qabiil iyo qashin baan u naqaanaa waxaas waa waxaan Soomaalinimada ku fiicnayn mudulood magaciisa waa magac weyn haduu muduleed shiraayana ninka la yiraahdo gudoomiyaha gobolka Umar Finish iyo hadii ilaahay ku rooyahay tarsan Ali Maxamed Geedi iyo ninka la yiraahdo maxuu ahay tood siyaasiyiinta ninkan wasiirka amniga ah raggaas mudulood maaha mudulood waxaad soo kacsataan marka aad rabtaan inaad dhibaataysaan mudulood iyo magac hawiye waxaad soo qaadaan marka aad rabtaan inaad dawladda Soomaaliya lagu qabataan waxaad qabiil raadisaan dadkan Muqdisho eriyadeeda degan problem iyo musiibo waxaad goobtaan maalinta aad aragtaan dawladdii baa istaagtay dawladdii baa socotay madaxweynihii baa saxiixay sharcigii wuxuu saxiixay doorashada deynti baa la cafinayaa ciidan cudud la la dhisay xuduudadii dalka la xiray maxay tahay xumaantii soo gashay xumaantaas ma aha wax idin ka shaqeyn doono hadalkaasuna ma aha dawladdu waxay dhag u dhigi doonto taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ninkaas mudulooda haddaad mudulood sheegaysaan bal ordo u tago muduloodaanay ku handada hadal iyo waxaan loo baahnay inaad haysaan iyo sheeko annagu farxad baan ku jirnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa labadaba waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin dhag howdhigan waxyaabaha noocaasa Xasan Sheekh hadow mudulood wax ku taraayo ama magaca oo hadda sheegayo oo ku soo celcelinayo asagoo madaxweyne qaran soo maray oo qabiil afka ku hayo 6 saac maalmeed meel la istaago isleeyahay bal mar walbaba dariiq oo san ku dayin inuu dawladda ku handada ninka ma jirto ninkaas waa ninkii sidaad ogeedeen u soo dhaqmay mudulood ma soo dhaweysan abgaal shaqo kuma lahayn hawiye uma soo dhaweyn group yaro dam jadiid la yiraahdo Soomaaliya dawladnimadeeda cunaha ku dhagan duleysane baabaasan oo madax u ahaa ninkaas aad arkaysaan hal maalin nin abgaal agtiisa koob shaah kama cabin 10 nin oo isku xiran oo casaabo ah oo dalkaas inay boobto ugu tala gashay maanta wuxuu ku leeyahay maqaamkii Muqdisho 4 sano ayaad ahayd madaxweyne ka ahayd Soomaaliya 4 sano ayaad ahayd madaxweynihii dawladda federaalka ee Soomaaliya 4 sano maalin kamidna Soomaaliya aan qaadin in maqaam Muqdisho loo sameeyo in wax la yeelo maqaamkan iyo waxaan aad wadaan maalintii farmaajo oo yimid miyay dhalatay farmaajo asaga mudulood iyo Soomaali iyo calankii Soomaaliya iyo ciidanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan farmaajo asaga idinkaga laxa jecel badan Xasan Cali Khayra ayaa idinkaga laxa jecel badan waxa ay sheegaysaan asaga ciidamadii lacagta u zaa'idiyay asaga amaanadina dhowray dalkii sharafkiisana maanta waa la ilaalinayaa haddaad la baqbaqleedihiin oo la qaylinaysaan banaanka la taagantihiin maanta ay marayso 2020 ayaan qabiil soo kicinaynaa oo qaab qabiilaysan dawladda ula hadlaynaa oo leenahay dawladii hadii qabiilka noocaas sidaas dawladdu ma yeeli karto been iyo buhtaan waaye dawladdu wax aysan yeeli karin male wallahi haddaad hawiyo dhan isoo raaco hadii daarood oo dhan isoo raaco hadii dir iyo jareer oo dhan ay soo wada baxaan maanta dawladda Soomaaliya meel laga istaajin karo ma joogto maanta dawladda Soomaaliya meel laga handadi karo ma taagna
wixii hadal ii dhaha waa meesheedii xasan sheekh maxamuud wuxuu raadinayaa in godobtii uu dalka ka galay problemkii uu sameeyey boobkii caddaa uu sameeyey dhulkan muuqda ee Soomaaliya maanta magaalada Muqdisho wixii xumaanahay oo ku sameeyey wuu rabaa in dukumentigoodii la soo qaado dib loogu dacweeyo maalin bay imaan doontaa ceeb baa dhexda ka istaagtay ilaahay baa igu og hadalkaas aan ku leeyahay ilaahay baa igu og inaanan Soomaaliya mar damba madaxweyne lagu lahayn iyadoo madaxweyne farmaajo dalkan ka shaqeeyay ee sharafka iyo qiimaha iyo dadnimada aad aragteen oo ku shaqeynayo inaad maanta intaad soo istaagta aad shaar qabiil soo huwato aad tiraahdo anigu waxaan soo kicinayaa mudulood waxaan u yeerayaa badar kicis waxaan ka dhacayaa mursade waxaan saas yeelayaa mariixaan waxaan inta ka dhacayaa hawiye magacaas qabiilka aad wadaan oo qashinka annagu shaqo kuma lihin muduloodnimo naguma matashaan hawiyenimo naguma matashaan soomaalinimo naguma matashaan waxaan maanta Soomaaliya matalaya nimanka dalkaas madaxda ka ah ee soomaalinimada jecel ee dadnimada jecel ee calanka Soomaaliya cirka babanaya maanta yowsan idin dhibin maanta waxay ahayd mudulood inuu u shiro inuu yiraahdo dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa mahadsan yihiin nama problemin 3 sano wada shaqeynayeen deyntii dalka laga cafinaya dhaqaalihii dalkoo dhan magaalada Muqdisho inta badan lagu isticmaalaa dhibaatada reer Muqdisho haysatay goonida anigu ma aqaano ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan ka magan galeynaa dadka siyaasiyiinta ah ee ka soo jeeda magaalada Muqdisho ee sida qaaska ah raba inay u dhibaateeyaan dawladda Soomaaliya Allah ugu mahadnaq ilaahay baan ku dacweynaynaa marka hore marka labaadna ilaahay baan u mahadnaqaynaa maxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay maanta dalkeena waxa mas'uul ka ah niman yaqaan waxa ay qabanayaan maanta dalka waxa mas'uul ka ah madaxweyne ka ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ma yaqaanaan nimankaas cabsi ma yaqaanaan ma aha niman lagu cabsi gelin karo dawlad heblaa ku diidayso ama qabiil heblaa ku diidayo raggaas ma yaqaanaan dawladnimada dariiqa ay leedahay ayay yaqaanaan waxa dhacday waxyaabo badan oo qurux badan hal maalin ma arkaysid inay ka hadlaan wax qurux badan hal maalin ma arkaysid inay ka hadlaan wax dawladnimada dhisaayo ma taageerayaan maanta waxaan Soomaali ugu bishaareynaa maanta waxaan inta Soomaaliya ee nimankaas hadalkoodii maqlay iyo waxa la midkaan ugu bishaareynaa maanta dadka degan Muqdisho dadka ay nimanka magacooda sheegayaan dadka degan xamar iyo nawaaxigeeda maanta wax qabiil ay shaqo ku leeyihiin malaha maanta waxay tahay maalintoodii waa maalintii dawladnimada waa maalintii qarannimada ummadda Soomaaliyeed kor loo qaadi lahaa nimankaas qabiilka ay sheegayaan waa qabiilka ugu weyn ee dawladnimada Soomaaliya inuu xambaaro jecel waa qabiilka ugu weyn ee dan ugu jirto in Soomaaliya dawladnimo ay ka dhalato ma doonayno hadalkooda qashinka ma doonayno wax ay ku hadlayaan waa dad iska bararagle xasan sheekh maxamuud warniyahow kitaabkaaga gadaal u akhri waxa aad samaysay fiiri wixii inta aad dawladeed xataa wixii Soomaaliya u samaysay ka daayay fiir muduloodka sheegaysa waxaad u samaysay jiraan waxaad u samaysay ma jiraan inaad Soomaaliya maanta qastaad ugu tala gashtay mana qasi kartid xasan sheekh maxamuud iyo groupkiisaas iyo cosoble qoryo soo qaata soo baxay ciidan soo waday qoryo soo qaata soo ataagada dawladda Soomaaliya haddii aad ku nabad galeysaan ama ay sheekaas idin shaqeynayso hadalladaas xunka dhag inaan u dhigno ma doonayno waxaas maaragtay malaayacniga ah ee doonaya maanta Soomaaliya inay lugaha ku dhagaan dalkeenu waa tagay Soomaaliyeey dalkeenu meel fiican oo maraa niman maaragtay qiimo leh adeeg iyo amaanada Soomaaliya ka shaqeynaysa adeegaas iyo amaanadaas aan raacinaa xiisa uma qabna annaga maanta dalkiyo la boobo gabro dalkii yimaada gumaysi iyo dhibaato maanta waxiisa aanu qabna male lacagteeni baa kordhaysa qiimaheeni baa kor baxaya waxaan boqolkiiba boqol u mahadnaqaynaa oon 400,000 oo mar u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo jir oo joog baan ku leenahay guulayso dadkan Muqdisho degan mudulood iyo madarkicis iyo waxa ay sheegayaan ilaa hawiyo dhan ilaa sab iyo Soomaali Soomaaliyo dhan maanta adigay ku daba taagan yihiin maanta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre leeyihiin wadada aad marayso way fiican tahay sidaas ay dawladnimada u rabaan ma aha laba nin oo meel taagan oo jeebkooda wax la raba laba nin oo raba inay iyagu dadku ku talaabsadaan ama meel ku fuulaan xilliga ay Soomaali meel ku fuuli jireen lama joogo aad iyo aad ayaan idin hambalyeynaya Soomaaliya guul Soomaaliya midnimo Soomaaliya cadaalad maanta annaga waxana deeqay hadaan Soomaali nahay hadal wanaagsan oo qarannimadii kor u qaadayaan deeqaya maanta waxana deeqaya hadal wax toosinayaan deeqaya maanta reer Muqdisho ciidu ka akhrisan mayso inay dawladda Soomaaliya lugaha ku dhagaan
weligeed Soomaaliya waxay ka socon weysnaa jirtay dadkaas Muqdisho jooga iyaga nabad rabin iyaga qarax ku socdaa iyaga geeridu ku badan tahay maxaa keenay in maalin walba Muqdisho odayaasha jooga iyo dadka jooga marba dhinac intay u cararaan ay yiraahdaan dawladdu waa sidaas iyo dawladdu waa saan dawladnimada xumaanteeda idinka soo aragteen wanaageedii baan maanta maraynaa wanaagaasaan maalan doonaa hadalkiina dhag uma dhigi doono wax allaale iyo wax ay sheegeen wallahi wax ka jira inaan la arag inta ay ku hadleen cid ku raacsan iyo cid ku soo raacaysa male nimankaas afar nin isma keeni karaan dadka aad arkayseen afar nin isma keeni karaan hadalkoodaas iyo niyad jabkoodaas anagu ma fiirinayno dawladda Soomaaliya taageerayna dawladda baan leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay sidii Soomaali wuxuu rabtay wax u qabanaysaa ra'iisul wasaare waad mahadsan tahay adeega iyo amaanada aad dalkan ka bilowdeen dhameystira dhag how dhigina meeshan waxa la rabaa waa mashaariic badan ba isdaba joogta Ali Mahdi wuxuu ahaa nin qiimo badan wuxuu ahaa nin ramsi ah oo la ixtiraamo magaalada Muqdisho dadka degan Ali waa la ixtiraami jiray Ali meel qaldan baa lagu tuuray nin ganacsadaha uu ahaa waa u cudur daarayna Ali Mahdi ma aha maanta nin siyaasad ku jira ama madaxweynenimo raba ma Ali waa nin ganacsade ganacsigiisa ku jira ninka waa shay ee Soomaaliya maanta godka la raadinayo waa Xasan Sheikh 4 sano ayaad naga qasaarisay 4 sano ayaa dawladda Soomaaliya adigu madax u ahayd haddii aad sida aad maanta ku hadlay aad isleedahay madaxtinimada ku helay madaxtinimo wallahi inaadan ku helaynin madaxtinimana maanta inaysan soo dhaafaynin nimanka dalka maanta mas'uulka ka ah iyagaasaan ula bagnay iyagaasaan meel fiican marinayo iyagaas baan raaci doonaa hadalladaas iska nacnacda ah ee Soomaalida maalmahan Facebook la dhax wada ee idaacadii ay wadaan la boonbooninayo wax ka jira lama arkaan waa dagaalkii Sheekh Shariif ku baaqay la mid tahay hadalkaas meel baan iska dhigaynaa ra'iisul wasaarihii wuxuu dhismo ku bilaabay hadda xarun cusub ayaa xukuumadda loo dhisayaa xarun cusub ayuu wuxuu ka dhisayaa xaruntii xisbiga isbartiibadii waa la dhisay meel walba waa la dhisay Xasan Sheikh waligiis guri rinji ma marin waligii dhismo ma samayn waxba ma dhisin wax ma dayactirin maanta wixii la dayactiray in inta la istaajiyo lacagtaas la kala qaato dawladnimada Soomaaliya lagu ciyaaro dadnimo xumo iyo dhibaato Soomaaliya la raadinaya Soomaaliya dhibaato Ilaahay ma tuso madaxdeena Ilaahay kor ha ka dhigo Soomaaliya meesha ay u socoto maanta meel laga celin kara maaha Soomaaliya maanta meesha ay ku socoto meel hadal looga istaagi kara ama nin hadalkii looga joogi kara maaha Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo cadawgeedu ha jabo Soomaaliya cadawgeedu waa batay dad gudaha naloo soo adeegsanaya dukumiintiyaan haynaa haddii maanta dawladda Soomaaliya ay istaagto Ali Mahdi dadku wax la weydiinayo ku jira badan qashin baa lagu shubay barbareen baa lagu sameeyay intaas madaxda dhibaato ay geysatay inaad aamustaan bay ahayd inaad dawladnimada Soomaaliyeed soo faragashtaan ma ahayn Soomaaliya guul Soomaaliya midnimo Soomaaliya cadaalad maalmahan aad iyo aad aan u kala maqnayn arrimo ii qaas aan ku mashquulay waase u soo jeesanaynaa inaan taageerno dawladda Soomaaliya ma ka seexan doono inaan runta u sheegno kuwa runta diidayaan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliyada aan naga rabna maanta waxay tahay Soomaaliyada oo raba ninka liiraa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre meesha ay maanta wax ku wadaan waa meesha anaga aan rabno dariiqa ay maanta marayaan waa dariiq Soomaaliya dhibaatada ugu bixilayd dariiqa Xasan Sheikh iyo Sheekh Shariif dariiqa cusub la raadinayna waa dariiqii dayaca ahaa waa dariiqii boobka ahaa waa dariiqii dawladnimo xumada ahaa waa dariiqii gunnimada iyo gumaysiga ahaa waay mana qaadan karna waxaas maanta waad arkayseen cutubyo cusub ayaa ciidankii Soomaaliya lagu soo darayaa waa aragteen ninka dhalinyarada odawaa ciidamadii qaranka sida uu habeeyay waa aragteen gobolkii Banaadir waxa ka socdo waa aragtaan ninkii la dhigi jiray duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish maalin walba guriye islaameed oo dadku celinaya maalin walba iskool baa la dayactiraya maalin walba wada la dayactiraya maalin walba meel baa la hagaajinaya hagaaguyowsan idin dhibin hagardaamadaas ma aha Soomaaliya wax ka shaqeynayo marka annaga maxaa looga baahan yahay waxaan looga baahan yahay inaan waxyaabaha qaar ee noocaas aan dhag loo dhigin dalka loo duceeyo nimankaas wax ay ka gooyin karaan dawladda Soomaaliya oo alla abuurtay wallahi inaysan jirin afar nin isma keeni karaan dawladda maanta jirtaana dawlad loo booteen kara maaha dawlad ka xoog badan dawlad ka awood badan dawlad wax u dhawaan kara lama arko taasoo ay maanta hogaaminayaan madaxweyne aad u ixtiraam badan madaxweyne aad u qiimo badan Xasan Sheikh inta maanta farmaajo dulqaatay
والله إنه صندوق قاتين إلهينا نقوم السعلي واحد دلقا إلهينا نقوم السعلي واحد توكتا إلهي سبحانه وتعالى أنا كبر يمينه وحن نوع عاسى إن ما عندما مصير كان إلهي وديبه إلهي وحن كبر ينا مدحونها جمهورية الفدرالية الصومالية رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية الصومالية حسن علي غيره إلهي تبتا أي وضان إلهي هلا قرب قلو إلهي عدو الصومالية هكقبته إلهي من نمدي الصومالية سعريو وحول بقى الصومالي وناجده ومعارضي دونان هداي معارضان أننا كبضنو أيدينا أننا دهينا مدحونا واسحنتاي رئيس الوزراء واسحنتاي طريقة مريسان طريقة واسحية طريقة نمك إنه وضانو معها من قادة كرنو وحنا وأربنا معها intaas ayaan idinkaga tagayaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo cadawgeedu ha jabo Soomaaliya yaan dhag loo dhigin waxaas hadalkaas waa hadal nin iska yiri waa hadal laba ay tiri waa hadal saddex ay tiri hotel inta la kireysta ama qol la isku soo xiriyo laga soo guuxo maanta Soomaaliya dawladeedii waxay u istaagaysaa maanta dawladda Soomaaliya meel laga qaban karo ma taagna guul baan idin rajeynayaa khayr badan idin dhaafaya madaxda qaranka kor Allah ka dhigo calankii Soomaaliya kor Allah ka dhigo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo cadawgeedu ha jabo biillahi kariim cududii Soomaaliya annaga ah garab baan siinayna Xasan Sheekh iyo waxa uu watana waxaan leenahay adeer gacali islaam baan leenahay caaydu waa mamnuuc yaan la caaytamin beejka yaan lagu dhaxaytamin wixii ra'yi oraha soo gudbiya badiyana si cadawga u gaaro hal la sheer gareeyo dadka la gaarsiiyo hada wa billahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.